A terrifying moment. A panicked woman is desperately trying to get into her apartment before it's too late. A creep bolts. sidoo kale tifiyadu waxay sheegeen guriga ama building ay degan tahay in albaabada la xiri jirin ba anytime uu iska furnaa jiray albaabadaas open oo iska ahaa waa albaab la furi karo la riixi karo la gali karo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وين سلام جايز نمتينا يوتيوب جلال كعداوني سوا إبرك دربوان وحارجان نمتينا عفمات خبطان سودو هذا جايز انت مقالك وجود قلينكور هذا ماشان كعصبت جلال سبسكرايب صار مقال كان الله يجري هذا وما سنت هاي سدا عوان كرك صار كتير ما انت مقال أنا هرب سميجرا روينا نسميه انت بدن أقصى عدستين كومنتيجا فريمين كومنتيجا كواركي عد هذين مقالنا وكل نص بدي سو واحد جعل هسه مقالنا وكل إنسان بدي أو قل المقال كان واحد تيفيد وسو قد بسي قبل لقوا مع أمريكا قليانو صوبت وسو قد بسنا واحد هاي سيد دتك دبعت وسو قارته إسكاجي سيف جرين لاين عاد أيضا كل عاد أكل هذه سو قارته سيد إسكو سيف جرين لاين لا واحد سيف جرين لا واحد بتبادي سيد إسكو بتبادي لاين عم dhacdo waxay ka dhacday building hoostiisa dabaq ay degan tahay hoostiisa waxay ku aragtay nin dhuumaaleysanaayo oo dabaq hoostiisa ku gambanayo meesan isdheheenin ninkaana wax dhibaato soo gudbinayo aan wax sameeynayo waxay u maleynaysid like nin meesha wax fafan ku sameeynayo oo qof meesha wax uun ku sameysanayo. The drama unfolded at 2 in the morning when the woman arrived home from a long day at work. waxay sameysay inay isku soo karto gurigeeda building ay soo kartay ilaa jaranjarada ay soo socotay kadib waxa dhacday ninkii inuu soo follow garay oo soo raaco gabadhii waliba asigu uusan istuseen. You can see him go up the stairs. sidoo kale ayadu waxay sheegtay inaysan arkin inuu asiga soo raacay. She says she noticed the stranger markii uu soo dhawday albaabkeeda waxay dareentay like qof inuu daba socdo oo kale sidoo kale waxaana ku soo dhacday in hadaati ay qof hoos ku dhuumaaleysanay soo arkaysan markii guriga ay furayso oo kale furaha ay ku furayso albaabka waxay aad u fiirinaysaa dhanka ay ka imaaday ama luuqa ay ka soo gashay oo gurigeed ku aadan yahay It's too late. A creep bolts down the hallway, coming right for her. She escapes with a second to spare. soo arkaysan ninka zaad ay u soo cararay laakiin si wanaag muusan ku imaanin ilaa ay gabadha guriga ka xarootay kadib ayuu imaaday ninka indha adeegiis ila fiiriyay wali saas ku muusan harin ilaa uu gurigeed ku imaado kadib wuxuu ariye ahaan uu ku dhawaaqay ama wuxuu dhahay ila fiiriyay Open up the door. Excuse me. Excuse me. si wanaag saas ay ku sii fikirayso gurigeeda ayay gashay waxa soo booqday TV-yada laakiin sida arkaysan gabadha waxa waaye jaakada wadata ma gabadha dhinac kale xigto waaye taasi taa wali familkeedii ay waxay codsadeen in wajiga loo qariyo. The lucky woman with the red hair and her family are so terrified today, they did not want their faces shown. gabadha familkeeda waxay sheegeen inaysan gabadha xilligaas dhacdo ku dhacday kadib ay shaqadeeda aysan ku laabanin ama shaqadeeda aysan aadin sababta jirta oo kaliya wali waxay ka cabsanaysaa dhacdada ku dhacdo oo kale inay ku dhacdo mar labaad. At this point, she wouldn't want to go outside to work or anything because she's scared this will happen again. sidoo kale tifiyadu waxay sheegeen guriga ama building ay degan tahay in albaabada la xiri jirin ba anytime uu iska furnaa jiray albaabadaas open oo iska ahaa waa albaab la furi karo la riixi karo la gali karo TV-ga ay u gudbisay muuqaalkeeda ama ay la wadaagtay dhacdada ayaa waxay ku tusayaan like albaabkii in furaha ku xirato ama furo u isticmaasho wax walba dhici karo ku leeyihiin albaabkii in furo isticmaasho sidoo kale waxay la kulmeen security qaab wuxuu tusayaa waxyaabo ay gacanta waxa isku save gareey kartid amal badan amal u tusaya badankaana noloshaada save gareey karo amal uu ku leeyahay laakiin ilaa wax save gareey karo taxadir ahaan uu noqonayo leeyahay isticmaashid waxa laga yaabaa qofkii ku soo weeraro inuu Security expert Manny Gomez offered some important safety tips. This is an alarm. It could save your life. It's very easy to use. You just pull it. Oh, that's loud. That's right. It's loud. It'll act as a deterrent. Old-fashioned pepper spray I see you have. Old-fashioned pepper spray as well. It's been around for decades and it works really well. You just flip the cap and put it into somebody's eyes, that person will immediately have a negative burning sensation reaction and it'll give you time to
escape and evade that assailant. sidoo kale wuxuu tusayaa tips qaarkood aad isticmaali kartid inaad qofka iskaga safgaraysid. He also showed me a self-defense technique. You could grab and knee to the groin, fingers to the eyes, chop to the... muuqaalka halkaas ay ku ekeysay aadan waxay u soo gudbisay waxay tahay haddii ama ahaan dhacdo ama kugu dhacdo ama sida u taxadirsid ama guryihiina furo u isticmaashaan guryaha markaa ka tagaysaan oo markaa soo xaroonaysaan aad iska hubisaan inaad guriga suglo gelisaan saas ay u soo gudbisay sidoo kale eeday haddana markii u soo gudbisay TV-ga security ay wareyseen TV-ga gaar ay gabadh u fiiriyaan oo dhacdo ay ku dhacday security-ka building-kaas. Hopefully you'll never find yourself in a crisis like this. marka muuqaalkeena halkaas ayuu ku ogyahay insha Allah waxaan rajaynayaa wax ka faa'iideen muuqaalkan ha ka ilaawna muuqaalka like gareyso channelka subscribe dhahdo waxaan u dhownahay waa 50,000 insha Allah waxaan rajaynayaa laba muuqaal kadib ama laba videos kadib in insha Allah u dabaal degno 50,000 subscribers insha Allah waxaan inoo balanahay muuqaalkan muuqaalka xiga waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.